marka ugu hore in yar waxaan xidhanahay weli waxaan xidhanay dharka kusoo kacay in yar madeer sii kartaan soo hagaajiyo iminka saasaan soo sameeyey ka waramada waan soo hagaajiyo xabad muuqaal soo jeedinta isku yaraykiisiiyo muuqaalkeenu wuxuu ka waramayaa 10 shay oo ka bartay 2021 السلام عليكم. سنة 2021 وها سنة ما شاء الله وحياة بدن وكبرناي وحياة بدن نتصي 10 بدن إنه كقاضناي هذا بقى 18 وكبرتي سنة 2021 هذا قارن أنا بوك أخي أما 10 أنا جو والله شخصي توصل كبرتي كو one day or day one you decide waxaad hayn maalinun amba waxaad oran maalintii koowaad weeyaan oo shayga markii uu bilaabay adaa ikhtiyaarkaas kale hadal kale oo la yiraahdo ayaa jira waqtiga u fiican ee shay la qabto wuxuu ahaa 10 sano ka hor waqtiga ku xiga waa maanta marka shayga doorsiga shayga jacayl imika bilow habaha sugsayn don't wait adigu waxaad tahay cadowga ugu xun naftaada adigu waxaad tahay qofka haddii aad horumar qabanaysid qofka ugu horeeyay naftaada ka hor imanaya waa naftaada markaas hamoodin naftaada markasta inay adiga ku jirto hamoodin adigu shaygan niyadaada hay dhex jiray inuu adiga nafcigaaga yahay waxa jirta si aan muuqaal hore ku soo sheegnay waxyaabo aad jeceshahay laakiin aanad u baahnayn iyo waxyaabo aad u baahan tahay laakiin aanad jeclayn sida la iskugu waafajinayo iyo waxaas oo dhan waxaynu kaga sheekayn doonaa muuqaalkeena soo socda ee buugga loo yaqaan Atomic Habits ayaynu kaga warmi doonaa laakiin imika naftaadu waa cadowga ugu daran noloshaada enjoy the journey ku raaxayso waqti ku qaado markaad hayaan wadid safarku ma safarkii caadiga ee marka meel tagaysid kaabuu noqon karaa laakiin inagu taruujin wax weeyaan markaad hayaan nololeedkaaga wadid markaad hadaf doonaysid inaad qabatid awoodda dhammaystiran ha wada saarin in aad goolkaas u gaadhid focuska dhammaystiran waxaan jeedaa focuska ha wada saarin inaad goolkaas u gaadhid intaad goolka ku maqan tahay ay wax ku dhaafi doonaa waxyaabo badan oo qurux badan oo jidka hayaanka wadid isku simaysid marka dadba waxay sameeyaan su'aal ahaan oo anigu waan kamid ahaa shay marka doonaysid qabatid naftu ma ogolaado ka soo qaashaygaas wuxuu qaadanaya 2 bilood naftu ma ogolaado inay ku yar raaxaysato yar faraxdo inay waxa ay ku istimtaacdo aan sameeyo ilaa intan goolka ka gaadhay mooyaane oo 2 bilood shayga qaadan ilaa intan 2 bilood maalinta 2 bilood gaadhayo shaygaas yani isagu awood kaas ma saaray maalintaas ma leeyahay farxadda maalinta u safkaree sidaa ha sameyn maalin kasta achievement qabatid ku farax maalin kasta marka shay qabanaysid goolkun awoodda hawada focuska wada saarin xiriirahaaga waxyaabo badan baa jira oo ku dhaafi karaan so enjoy the journey casharka afraad ka bartay sanadka waxa weeyaan consistency almudaawama joogtayntu waa shayga ugu muhiimsan marka shay la doonayo in la qabto joogtayntu waa shayga haddii aanad qabanin haddii aanad joogtayn shaygaas kuma qabsoomayo nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu yidhi axabu alacmaali ila allahi adwamuha وإن قل إلهي أكتيس وحو جعلها عملها لوغو جوگتين تبدين يهي وقفكو جوگتيو هوا يراتين تاس وحي عدين ساعة مهمتا اي جوگتين توليراهي Your life is your day مالين تادو وانا نولوشادي حكا كوبان تاهي مالمهاغين ولسوكا جيجيي اون هدبا waxaad sawiran kartaa meesha joogi doontid 10 sano kadib haddii aad sawiratid haddaad xisaabisid maalintii waxaad qabatid waxaad oran kartaa maalin kasta 2 saacadood aan qabtaa 5 saacadood aan qabtaa 8 saacadood hurdaa marka taas ku geeyaysid umaad ku dhufanaysaa 10 sano ma ku dhufanaysaa marka waxa halka kaaga soo baxaya xagga joogi doontid oo qiyaasun ma hadhawe 10 sano kadib marka hayr yaraysan ha oran maanta sida berito aan qaban doonaa maalintan waa maalin noloshaada kamid ah maskaxdaada dib baa loo program garan karaa maskaxdaadu ma aha shay dad fikrad aaminsan tahay hadda dhaqan leedahay hadda shay ka dhacsan yahay ama hab nololeed aad u dhaqantiid leedahay inuu shaygaas kugu daaimayo maaha ee shaygan wad bedeli kartaa hab fikirkaad u fikirtid wad bedeli kartaa ma aha shay kugu xiran ma aha shay aanad noloshaada lagu program gareeyay oo aan ka baxayn maaha maskaxdaada dib baa loo program garan karaa marka hamoodin ha oran shaygaas saameyn maayo waxyaabaha wax jira anoonsid oo qof saasaan heesaas saameyn meesha way ku saameynaysaa maskaxdaadu waa kombiyuutar kale shaygii lagu shuubay bay qaadanaysaa shaygii hareerahaaga joogay qaadanaysaa waxa la yiraahdaa isha araga jirkeenu wuxuu leeyahay 12 milyan oo receptor ah
10 milyan waa receptorska aragga kaliya marka waxyaabaha aanu aragno waxyaabaha hareereen ugu hareeraysan aad bay ugu xiran yihiin saameynta maskaxdeena soo barnaamijsan tahay marka nolosha caqligaagu dib loo program gareyn karaa. Sometimes it's better to let someone go. mararka qaarkood waxaa iska fiican in aad qof noloshaada ka saartid ama dad noloshaada ka saartid. Power of habits. awoodda ay leeyihiin caadooyinku. caadadu waa noloshaadii oo la isu geeyey. caadadu waa maalintaadii. marka shaygaad caado ka dhigatid ama waxyaabaha caadada ku ah waa noloshaadii un. marka awood badan bay ku leeyihiin iyo saameyn badan ay ku leeyihiin caadooyinka joogtada ah eed qabatid maalin kasta noloshaada. marka isku day inaad hagaajisid maalin kasta caadada aad qabatid haba yaraatee. mawduucan oo faahfaahsan oo caadooyinka yaryar ah waxaan kaga hadli doonaa buugga Atomic Habits oo yaqaan. shay aanu si fiican u arkay oo aadna anfacay waxaa ka mid ah inaad dhegaysatid buugta dhegeysiga ah. buug dhegeysi soo qaado adoo iska socda bas saaran dhagaha iska gasho iska dhegeyso waayo waqti badan ku saf garanaya adoo aan focus badan siinin waad dhegeysanaysaa laakiin markaad u baahantahay inaad wax akhridid wanaad meel aad fahbiga fadhiisataa iyo wax la mid ah laakiin markaad oo gaari iska wataa adoo iska lugeynaya adoo meel kale iska fadhiya ayaad iska dhegeysan kartaa buugtaada. marka ayadna waa hab yar oo fudud oo kale buugta aad waxyaabo badan aad u dhegeysan kartid. keena u dambeeya focus on who you want to become rather than what do you want to become. awoodda saar qofka doonaysa inaad noqotid ama shakhsiyadda doonaysa inaad noqotid halkaad awoodda ka saari lahayd maxaa doonaysa inaad noqotid. yacni iminka title ahaan inaad shayga noqdo inaan noqdo qof title caadi ah ama aan shay sameeyo shaygan aad sameynaysid ama goolkan leedahay waan sameynayaa waxa dhaama adoo focus gareeya shakhsiyadaada oo aad noqotid shakhsiyadda jecel inaad noqotid shakhsiyad caadiska iska ilaalisa shakhsiyad productivity badan leh shakhsiyad wax soo saar badan leh shakhsiyad discipline iyo sharciga iyo markay gool doonaysa inaad noqoto ay ka go'an tahay shakhsiyad consistency leh oo joogtayn leh inaad noqotid ayaa waxay dhaantaa inaad awooddu saartid gool aad gaari lahayd ama leedahay shaygaas doonaya inaad qabto ayaa waxay ku dhaantaa adoo awoodda saara shakhsiyadda aad doonaysa inaad noqotid. waayo sababtu waa maxay? sababtu waxa weeyaan haddaad shakhsiyadda aad doonaysa inaad noqotid ama shakhsiyadda aad iska hagaajisid waxaa kuu fududaanaya oo si fudud gaari kartaa goolkii. marka labadiiba waad isku heshay. maxaa loolan jiray cusfuuraani bixajarin waaxid. taas waxay ahayd 10 cashar aan ka bartay sanadkan 2021. waxaan leenahay مع السلامة. sanadkan ilaahay sanadka dambe ha nooga dhigo sanad khayrkiisa wata sanad aan waxyaabo badan oo kale aan ka barano sanad aan wixii aan doonayn inaan gaarno aan ku gaarno ayaanu ilaahay ka codsanaa dhammaanteenba aniga iyo adiga qofkay daawanayo. haddii aad ku cusubtay channelkan ama aan magacayga garanayn waxaa la yaqaanaa Maxamed Almansuuri. waxaan channelkan soo dhignaa waxyaabo khuseeya self development lifestyle iyo waxyaabo teknolojiyadda khuseeya marmarka qaarkood vlogs iyo in yaro entertainment ah sida muuqaalkeeni u dambeeyey aan soo dhigay xaggan sare ayaan kuu soo dhigayaa. haddii aana daawan iska daawo oo muuqaal yaro entertainment oo dhextaal u ahaa markaan waxoogaa fiiriyo aan soo dhigno caadiya marmar waxaa dhici karta in xabad yaro entertainment ah ama xabad yaro short film ah soo dhigno. marka waxaan kaa codsanayaa intaan muuqaalka dhammayn inaad xagga axsaanka ah aad naga cadaysid haddii aan weli cadayn waa channelka weli shan cusub muuqaalkeeni saddexaad aan sanadkan soo dhigay insha Allah maalin kasta oo jimcaha aan soo dhigi doono muuqaal cusub. marka sidaad ila socotid channelka subscribe noo saar wabillahi tawfiiq maca salaama.